daawadayaal ku soo dhawaada sheeko aad u xiiso badan oo ka dhacday wadanka Bangladesh. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee wadankaas Bangladesh ayaa soo dhaweeyay janaasadii ugu horeysay ee abad wadankaas loogu tukado mid qof jirkiisa ka ganacsan jiray, iyadoo halkaas ay ku burburtay dood muddo dheer ka taagneyd wadankaas oo ay muslimiintu ku badan yihiin. Hamida Began oo ka shaqayn jirtay mid kamid ah xarumaha ugu waaweyn adduunka ee dumarka jirkooda uga ganacsadaan ayaa xanuun u geeriyootay isbuucii la soo dhaafay iyadoo 65 jir ah. Tiradada ayaa iskugu tagay qabrigeeda si ay goobjoog uga noqdaan janaasada lagu tukaday ee taariikhda ka gashay wadankaas. Sharciga wadanka Bangladesh waxa uu ogol yahay howlaha la xiriira haweenka ee jirkooda ka ganacsada, laakiin culimada diinta Islaamka ee dalkaas ayaa hore u diiday in qof noocaas meedkiisa janaasada lagu tukado. xitaa waxa dadka jirkooda ka ganacsada lagu aasaa qabuuro aan la calaamadeyn, iyadoo aan wax duca loo sameeynin ama aan la waafajin dhaqamada kale ee ka jira dalka. Began qudheedu way filaysay in jidkaas oo kale ay mari doonto, laakiin inta aysan dhiman ka hor ayay isbahaysiga ka kooban haweenka jirkooda ka ganacsada iyo booliiska ka codsatay inay hogaamiyaasha diinta ku qanciyaan si fiican loo aaso. Imaamku wuxuu markii hore isweydiiyay inuu tujiyo salaada janaasada kumana uusan qanacsaneyn, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Ashiqur Rahman mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP. Sarkaalkan wuxuu kormeer ka ahaa heshiis ku saabsan in haweeneydaas aaskeedu ka duwanaado dadkii iyada la midka ahaa ee hore u geeriyooday. Sidaas awgeed aasdimeed ayaa haweeneydaas loo sameeyay maalintii Khamiista ahayd ee la soo dhaafay. Mas'uur Rahman waxa uu sheegay in aaskeeda ay ka soo qayb galeen dad kor u dhaafay 200 oo ruux, halka in ka badan 400 qofna ay tageen tacsideeda iyo ducadii loo sameynayay. Dadka tagay qabriga Began waxa kamid ahaa wiilkeeda Mokal Sheikh iyo gabadheeda 15 jirka ah ee lagu magacaabo Laxmi, taasoo iyada lafteeda kamid ah haweenka jirkooda ka ganacsada ee ku sugan xarunta taalada magaalada Dawladiya. Waligay kuma riyoonin inay heli doonto sagootin sidaas u sharaf badan hooyaday, waxa loola dhaqmay sidii qof bini aadan ah, ayay tiri Laxmi. Waxaan rajaynayaa in haweeney kasta oo halkan ka shaqeyso oo aniga xitaa aan ku jiro aan heli doono salaada janaasada sida hooyaday u hesho oo kale. Hamar Began oo ah hogaamiyaha isbahaysiga maxalliga ah ee haweenka jirkooda ka ganacsada ayaa olole u sameeyay in aas sharaf loo sameeyo. Began waxayna dib u xasuusinaysaa qaabkii hore ee loola dhaqmi jiray dumarka noocaas ah oo markii ay geeriyoodaan. Xarunta haweenka jirkooda ka ganacsada oo ay ka shaqayn jirtay Mr. Began waxay kamid tahay 12 xarumood oo ku yaala wadanka Bangladesh, waxayna ka dhisan tahay meel qiyaastii 250 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimadda Dhaka. waxaana markii ugu horeysay la aasaasay ku dhawaad hal qarni ka hor xilligii uu wadankaas ka jiray gumaysiga Ingiriiska. Daawadayaal, intaas ayaynu ogtahay sheekadeeni la yaabka lahayd oo maanta ku soo qaadanay barnaamijkeena. waa aniga Maslax Nasiib. intaan sheeko caynkan oo kale aan kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.